Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow barnaamijkeena aan ku falanqayn doono sirta shirkadda Tesla. Ma laga yaabaa shirkadaha telefoonada soo saara inay dhinacyada eegaan marka ay shirkadda Tesla kusoo biirto tartanka telefoonada? Barnaamijkan ayaan ku falanqayn doonaa. Dhegayste, soo dhawow mar labaad. Aad ayaad ugu mahadsantahay soo booqashada ogaalka cilmiga. Mar kale, aad ayaad ugu mahadsantahay soo booqashada channelkeena. Barnaamijkan maanta waxaan ku falanqayn doonaa tartanka telefoonada ayaa waxaa kusoo biiray shirkad cusub. Shirkadaas waa Tesla. Barnaamijkan ayaad kaga bogan doontaa falanqayn aad u xiiso badan. Apple, Huawei, Samsung, boqorada soo saara telefoonada, sameeyana malaayiin telefoon sanad kasta macaash aad u badanna ka hela. Yaa kusoo biiray tartankooda waa Tesla. Dadka qaar ee aad u xiiseeya shirkadda Apple ayaa la sheegay inay ku biireen mucjisooyinka caalamka. Dadka aad u xiiseeya shirkadda Apple ayaa la sheegay qaar ka mid ah inay u gadaan keliyahooda si ay u helaan telefoon iPhone ah. Kusoo dhawow barnaamijkeena. Haddii aad rabto telefoonkaaga inaad u beddesho tablet, shirkadda Samsung ayaa laga yaabaa inay mid kaa gaddo. Huawei waxa uu sameeyaa telefoonno kamarad wanaagsan. Telefoonkan ay shirkadda Tesla soo saari rabto waxa kale oo la iman doonaa application cusub oo waqti badan la geliya. Applicationkan ayaa muddo dheer laga shaqaynayay, inkastoo applicationkan weli 99% aanu diyaar ahayn, balse waxa uu noqon doonaa markii ugu horeysay ee ay shirkadda Tesla soo geliso telefoonkan cusub ee ay rabto inay soo saarto. Applicationkan lagu magacaabo Neuralink waxaa la geliyay waqti badan, waxaa laga shaqaynayay muddo badan. Barnaamijkan ayaa waxa uu noqon doonaa markii ugu horeysay ee ay shirkadda Tesla ku soo darto telefoonkeeda. Barnaamijkan waxa uu ka dhigi doonaa telefoonkan Tesla ay soo saarayso mid aad u sareeya, una yeeli doona qiimo dad badan ay sababtiisa u gadan doonaan. Haddii aad xiisayso calaamadda tufaaxa ah ee shirkadda Apple ay caan ku tahay, waxaa laga yaabaa shirkadda Apple inay kaa gaddo telefoonno tayo wanaagsan, kuwaas oo ilaalinaya xogtaada dhanka internetka markii aad internetka wax ka rabto. Balse tartankan waxaa hadda kusoo biiray shirkad cusub. Shirkaddan ayaa waxaa xagga dambe ka riixaya ninka ugu xoolo urursiga badan dunida ee lagu magacaabo Elon Musk. Ninkan ayaa waxa uu bariiskiisa ka ritaa samaynta dayax-gacmeedyada. Shirkadda Tesla ayaa waxa ay shaacisay soo saaridda telefoon ku shaqayn doona Wi-Fi lagu magacaabo Starlink Wi-Fi. Wi-Fi-gan ayaa waxaa la filayaa in qiimaha internetka uu aad u jabin doono. Shirkaddan Tesla ayaa waxay caan ku tahay soo saaridda software ama application aad u tayo wanaagsan, kuwaas oo lagu programmeeyo dayax-gacmeedyada. Tartankan ay shirkadda Tesla rabto in ay la gasho shirkadahan soo saara telefoonada ayaa waxa uu u muuqdaa mid aad u adag. Shirkadahan soo saara telefoonada ayaa waxa ay sanad kasta ka sameeyaan malaayiin doolar dhanka telefoonada. Qof kasta oo dul jooga adduunkan hadda waxa uu xiiseynayaa ama uu haystaa telefoon. Haddaba, haddii aan gudagalno sharxitaanka telefoonkan cusub ee ay shirkadda Tesla soo saarayso, telefoonkan waxa uu ku shaqayn doonaa Starlink Wi-Fi, midkaas oo telefoonada kale hadda aanay haysan. Dhanka software-ada ama applicationada ku jiri doona telefoonkan ayaa la sheegay in ay noqon doonaan applicationo aad u heer sareeya. Shirkaddan ayaa waxa ay ka shaqaysaa programmeynta ama samaynta gawaadhi iyo ku iswada. Tartankan ayaa mar waxaa ku soo biirtay shirkadda Apple iyadoo rabtay inay soo saarto gaadhi iswada, balse waxa ay ku qaadatay waqti dheer, midaas oo qiimaha gaadhiga aad uga qaaliyeysay. Hadda inta ay ku gaddo shirkadda Tesla telefoonkan ay Tesla soo saari rabto ayaa waxa kale oo aad ku adeegsan kartaa inaad gaadhigaaga ka kaxayso geeraajka ama meesha aad dhigto, horay ama gadaalna aad u kaxayn karto adigoo adeegsanaya telefoonkaaga. Waxa kale oo ay shirkadda Tesla ay xoogga saaraysaa in ay hubiso telefoonkan in uu noqon mid si fudud lagu jabsan karo. Telefoonkan Tesla ay soo saari rabto ayaa waxa uu Elon Musk mar waraysi uu bixinayay uu sheegay in uu noqon doono mid aad u adag in la haagareeyo ama la jabsado.
ilaalinta xogta macmiilka telefoonka ayaa waxa ay aad sanadihii ugu dambeeyey u noqotay su-aal dadweynuhu ay isweydiinayaan. Xog intee le'eg ayuu telefoonkaagu kaa og yahay? Su-aalahaas ayaa laga yaabaa in ay caqabado ku noqon doonto shirkaddan marka ay rabto inay kusoo biirto suuqa telefoonada kale. Casharada kale ee ay shirkadda Tesla maskaxda ku hayso waxaa ka mid ah shirkadda Nokia ayaa waxa ay aad ugu faaftay mar dunida. Shirkaddaas oo macaash aad u ballaaran ka samaysay gaditaanka ama iibinta telefoonada, balse shirkaddu sanado yar ka bacdi waxa ay lumisay macaamiil aad u badan, midaas oo ka dhigtay shirkadda Nokia in gadaal looga riixo suuqa ama tartanka telefoonada. Cashiro noocee laga yaabaa shirkadda Tesla in ay ka baratay midaas? Casharada kale ee ay shirkadda Tesla maskaxda ku hayso waa shirkadda BlackBerry hadda waxa uu ka mid noqday shirkadaha lagu xasuusto gadaal socodka. Xataa LG ayaa waxa ay ahayd shirkad soo saarta telefoonno tayo leh, haddase xaggay ku dambeysay? Ma laga yaabaa Elon Musk inuu guuleysto meelaha ay shirkado badan ku habsaameen? Maaha wax lala yaabo in shirkadda Tesla telefoonka ay soo saarayso uu ekaan doono telefoonka hadda Apple telefoonka ay soo saarto, balse telefoonkan ayaa waxa uu yeelan doonaa kalaro kala duwan, midaas oo isku bedelaysa kulba jawiga. Telefoonkan ayaa waxa uu yeelan doonaa tayo kamarad oo aad u wanaagsan. Telefoonkan Tesla ay soo saarayso ayaa waxa uu noqon doonaa mid ku wanaagsan dhanka sawirada hadda dhalinyaradu ay u yaqaanaan selfiga, midkaas oo kamarad aad u tayo wanaagsan yeelan doona. Barnaamijkeennina waxaan kusoo afmeeraynaa intaan ku kulmi doonaa barnaamij sidan oo kale u xiiso badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad ugu mahadsan tahay waqtigaad ku bixisay daawashada Ogaalka Cilmiga. Kulan dambe oo xiiso leh.